gender ma taqaanin genderku luqa ahaan waa wax saga isku dhadhow lab iyo dhadig laakiin ma aha socially markay inoo fasirayaan iyagu say u sharxayaan waxay leeyihiin ninnimadu iyo gabadhnimadu waa dawr ijtimaaciya waa wax qofku uu matale wuxuu u dhasho maaha gabadhan biologically aynu inagu gabadha u naqaanaa gabadh maaha ninkan aynu nin u naqaanana nin maaha shaqadu bulshada ka qabto bay ku xidhantay gabadhuna nin bay noqon kartaa ninkuna gabadh buu noqon karaa waxay ama qaanuun ka dhigayaan ama tadwiil la dowladaynaya United Nations intuu qaato la odhanayaa dunida hoos timaada ee memberka ka ahi waa inay fulisaa waa qaanuuna United Nations ka soo baxay afkaar waa taswiiq lil afkaar baa la faafinaya oo waxa soo mu'tamar inta loo qabto lacag lagu bixinaya la wadaya afkaar yada la faafinayo mustalahaadka dadku ay jecel yihiin baa lagu isticmaalaa xuquuqda dumarka xuquuqda caruur ma qof bini'aadam xuquuqdiisa diidan ba jira intii lagu dhaha xuquuqda dumarka de waxaad tilaada waa wax fiican sharciga maaha laakiin xuquuqda la sheegaya waxa weeyaan suuqeeda waa inay geli kartaa sagaska cidda ay doonto waa inay la samayn kartaa sharci ma kuma xidhna qaanuunku inuu guur kuma xidhna sagasku guur iyo guur la'aan waa la samayn karaa familigu wuu wada deganaan karaa family maxaa loo yaqaanaa nin iyo gabadh isqaba oo sharci la isugu meheriyey wuxuu doonaba sharcigu ahaadee waxaa kaloo loo yaqaanaa baa nin iyo gabadh wada degan meherba yuu dhicine waxaa loo yaqaanaa laba nin oo wada degan oo la isu meheriyey haddaba laba nin waxaa loo yaqaanaa laba nin oo aan la isu meherine wada degan bay ku leeyihin waxaa loo yaqaanaa laba dumar oo la isu meheriyey laba dumar oo aan la isu meherin ilaa 12 qaybood wax ku dhadhow buu tilmaamayaa wasiiqada United Nations iyo qoyska maxaa qoysa adu marka aad maqasho usrada hal la horumariyo waxaad soranaysaa de reerihiiba wax loo qabanaya oo familieskii iyo qoysaskii baa la wadaa laakiin qoyska uu sitaa waa qoys nooca kana markaad maqasho xuquuqda dumarka waxaad leedahay xuquuq dumar baa laga hadlaya laba mid oo aqliga bini'aadamka gali kara hoosta laga soo gelinaya guurka maxaa la yiraahdaa isheeg waxay sheegi jireen waxay fircooniga gudniinka fircooniga hal joojiyaad meelaha ku arkaysa dabeetana konton kalena waa la sharxaya idan waa litazyiin waa la qurxinaya waxa kan hay'adkan United Nations ee meesha jooga iyo kuwan kale tirada badan le meesha jooga waxay bixiyaan projects mostly projects kaasi maaha wax development ku saabsan wax ummadda wax taran maaha qofka qaadanaya hungurigu isagu uga dan leeyahay 5,000 10,000 waxbaa lagu soo siinayaa shir yar baad qabanaysaa capacity building iyo beena kaloo la sheegay iyo waxaasaa loo xuquuqda dumarka laga warramaya ama gaal yar baa imanaya ama mid yar oo Afrikaan baa imanaya waxoogaa la jira jeedinaya waxa kan waa laaca la isu dhigo markaad wax dabanayso maxaa la sameeyaa qofka raba baadiye inuu ugaadhda soo dabtaa muxuu sameeyaa haddaanad laac dhigin laac waa waxaan loo dhigay dee dabinka ma soo doonanayso sabab ku kalifaysa inay dabinka u timaadaa waa inuu jiraa waxaana waa laac la dhigayo laakiin afkaar badan ay ka dambeeyaan mararka qaarkood alminax baa ku xidhan dawladuhu waxay bixiyaan hal oranaya dawladdaasi xuquuqda bini'aadamka ku xadgudubtaa la siin maayo aidiskay dawladaha waaweyn bixin jireen xuquuqda la sheegaya waa maxay waa ragga u taga ayaanad xaqooda ogolayn ama qaanuun ciqaabaya baa leediin waxay dhahdeen usrada qoyska oo wata macnihii bini'aadamnimo xadaareed wuxuu dunida ka jira bay dhahdeen caalamka muslimiinta inkastoo muslimiintu nolosha inta kale oo dhan ay mutakhalifiin ka yihiin Ari Huckman ayaa wuxuu ka khudbadaynayaa nadwo lagu qabtay Mexico marka wuxuu ku faraxsan yahay isbedelka dunidu ay qoyska ka samaysay hadda muxuu leeyahay tiradan badatay ee furitaanka talaaqi dunida wuu batay buu leeyahay waxa kaloo batay buu yiri caruurta sharci darrada ku dhalata ee aan guur lagu dhalin labadaaba waxaan u arkayaa buu leeyahay guul xuquuqda bini'aadamku ay gaadhay inay tahay weligaa ma maqashay waxa ay dhaha in la isfuro iyo caruur garacye inay dhalato
وحكوت ترينا يعد نصرا كبيرا لحقوق الإنسان على البطراركية بطراركي قوام حي ومجتمع ننكو كتاليو مجتمعين ننكتاليس كهابا لقب حيبولو يلقو حروبي ودمركي عرورتي باكو حروبي marka sharci darrana waxbay ku dhashay markay doontana furitaankeeda ay qaadatay wuxuu ku tilmaamayaa marka inay tahay xorriyad Annie Foster دراسة uu sameeyay waa Mareykan wuxuu leeyahay war wax la yiraahdo nin iyo gabadhi dunida hadda kama jiraane shan nooc bini aadam ba hadda jira buu leeyahay waa kuwii ragga barigii hore la oran jiray qoladii dumarka barigii hore la oran jiray ragga cusub ragga kora dumarka cusub dumarka kora iyo rag iyo dumarka la isku bedelo kuwan ay biologically intay qalaan ay bedelaan markaas yani nin baa la qalaya hormoona lagu mudaya naasa loo sameeynaya mahbal sanaaciya loo sameeynaya wala gabadhaynaya isagoo gabadhu markaa noolaanaya ficlan ma u malaynaysa midkaasi intuu soo islaamo diinta dib ka fahmay in la garan waayo safka masaajidka xagga lagu dari doono xagga dumarka la geey xagga ragga la geey